waxa ugu horeeya arinta u yimid waxa ugu horeysa bani aadamnimada waxaan la socotiin inuu tagay dhowr meelood oo ay joogaan dadkii dhibaatada ku dhacday wuxuu soo arkay noloshooda iyo caafimaadkooda naam fadlan Sayın Başbakan'la görüştüm. Kendisi de size anlatmış neler çıktı. Şu anda kamplar gezdik. Mağdur olan insanları da görmüştük beraber. Ve kendisi size detaylı bir şekilde anlatmıştır. Şu anda hadalkii uu madaxweynuhu jeediyey ayaa loo turjumayay ra'iisul wasaaraha Turkiga. adeeg wanaagsan marxaladan kaliya ma aha marxaladan iyo marxalada ka dambaysa marka ay ka baxaan nolosha adag ay ku jiraan waxay u baahan yihiin guryahooda ku laabtaan beerahooda ay fashaan waxay u baahan yihiin caruurtooda inay wax barato waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin jidad waxay u baahan yihiin nal waxay u baahan yihiin dadka bani aadamka adduunka jooga waxa haysto arrimahaas oo idil laga wada hadlay biz konuşurken bazı konular hakkında konuşmuştuk. Hem bu gıdasızlıkla ilgili hem susuzlukla ilgili hem de bu insanlara nasıl yardım olabileceğine bir görüşme yapmıştık. Ve bu kötü durumda olan insanlara herkes bir hakkı var. Eve dönüp de güzel bir hayata yaşama hakkı var. Onu nasıl ileride düzenli bir hale getirebileceğimizi konuştuk ve inşallah iyi bir şekilde halledeceğiz. dhinaca kale waxaan ka wada hadalnay muassasaadka dawladda burbura sidii noo soo noola lahay si ay u suura gasho ummadda Soomaaliyeed ay u adeegto dawladda bir de devletle ilgili bazı görüşmelerimiz oldu. Çünkü şu anda gördüğümüz kadarıyla şu anda devlette ve bakanlıkta bazı sorunlar var. Binalar yıkmış ve her şey düzgün bir şekilde değil. O yüzden onlara nasıl güzel bir hale getirebileceğimizi konuştuk ve elimden gelene kadar yapacağınıza bir söz verdiler bize. dhinaca kale waxaad maqlayseen in safaaraddii laga furi doono halkan waxay ahayd waxyaabaa laga wada hadlay si ay u fududayso in lagu guulaysto waxyaabihii laga wada hadlay fulintooda. Bir de şöyle bir şey var. En yakın zamanda burada Türkiye'nin büyük elçiliği açılacağına söz konusu var. Ve gerçekten bu elçilik açtıktan sonra buradaki yapılacak olan bütün çalışmalara kolaylaştırmak için burada Türkiye'nin büyük elçiliği açılacağına marka waxaan leeyahay waa fursad weyn oo ummadda Soomaaliyeed u timid aan ka wada faa'iideysano. Bu Somali halkı için, Somali devleti için büyük bir fırsattır ve bu fırsattan faydalanması lazım. Ahsantiin. Teşekkür ediyorum. President Sheikh Sharif, sorry, my name is Johannes Dietrich, Financial Times, Germany. Sorry that I speak English. Somebody will translate. It's clear from this visit that the famine in Somalia is not only a big tragedy, but also a big chance for your government and for the country. How will your government grasp this chance now? Financial Times'tan soru. Somali Cumhurbaşkanı Arapça mı yaptınız? Bu bir tehlike السؤال بأن المجاعة التي تعاني منها الصومال حاليا تبدو للوهلة الأولى وكأنها أزمة. كيف تفكر حكومتكم بتحويل هذه الأزمة إلى فرصة؟ kamid ah wariyaashii goobta fadhiyay waxaan uu yiri majaacada waxay noqotay ama gaajadu azma ama mid aad u dhibaato badan oo dadku u dhimanaya sidee marka loo wareejin karaa oo arin kale looga dhigi karaa ma dhihi karo aniga dhibaatada hadda jirta ayaa fursad ah laakiin waxaan ka hadlayna waxay yihiin mushkilada Soomaaliya dhamaanteed in la isku wada xalliyo waxaa dhici jiray abaaro laakiin dhibaatadooda inta ma ka yaraa jirtay waxa dhibaatadooda u baahday waa muassasaadka dawladda oo burburay amnigii oo dhibaato ka jirto dhaqaalihii dalka oo burburay dad badan oo aqoon lahaay ama xoolo haysto ka baxay dalka marka waxaan ku wajahanahay in mushkilada si guud loo xalliyo dhinacaas marka waxaan ka dhigi karnaa waa fursad waana dhinaca aan ku fikirino. It's really great. Bizim için bu kuraklık
Hem bu kuraklıkla ilgili hem bizim için fırsat olabilir. Çünkü herkes kötü durumda olduğumuzu daha iyi bir şekilde anlamış. Ve o yüzden bize gelenler ve yardımcı olmak isteyenlere görmüştük ve teşekkür ediyoruz. İnşallah iyi bir şekilde değerlendireceğiz ve halkımıza ne kadar yardımcı olabilirsek ve devletimize ne kadar kendi ayağına devam ettirebileceğine inşallah güzel bir şekilde yapacağız. Yeah, hello. Sorry, the journalist. We're just going to translate in English for you. The answer was, it's not an opportunity if you look at it that way. It's a disaster, humanitarian situation would happen, but this is a way forward for us to tackle the issues ahead of us right now and also plan for the future. So that's the issue that we're dealing with at the moment. Thank you. That's all the questions. Thank you.